waxaan arkayay shalay tooliye oday nin weyn oo mataqaanay gudoomiye ah oo shalay garooma meel halkaas yar barmarayay baan arkayay runtii waxa fiicneed mataqaanay gudoomiyuhu waxa wasaaradda u socda iyo qaabka ay u socoto iyo garoomadaasi sababta biraha looga jaray inuu intaba yar ogaada fiicneed inuu hadla ma ahayn inuu ka hadla ma ahayn waxaan leeyahay gudoomiye xaalad nabadgelyo ayaa garoomadaasi ammaan ayaa looga furay birahaasi annaga iyo booliisku iyo waalidiintuba waanu isla ognahay waana laga shaqaynayaa sidii dib loogu hagaajin lahaa ee loo heshiisiin lahaa cid baa iskaga kaaya dirta dhalinyarada kooxaha yaryarka meesha ku ciyaaraya cid baa ku dhex jirta waxaan u malaynayaa malaha ciddaasi lug buu ku leeyahay baan isleeyahay waa arrin aad u khaldan waa hubso intaanad hadlin intaanad tegin hubso hawsha la wado sida ay ciyaaruhu u socdaan hubso ummadeennan madaxda mas'uuliyiinta qaranka cid walba xil ayaa saaran annaga xil baan la saaran adiguna xil baad haysaa waxaan isleeyahay cidda xilkayga gudan weyda ama aan gudanin gudoomiye ugu horeysa baan isleeyahay waxaa noo yaala xeerkii sportiga waqti ma la geeyay golaha ilaa maanta lama hayo halkuu maray hadduu raadciyay isagoo xataa arkiifidiisa ka heli maayo waa la ignore gareeyay waxa yaala golayaasheena qaranka ama golaha baarlamaanka waxaynu u baahnayn in mar walba 5 sano mar la doorto imisuu marayaa xeerkii lagu soo dooran lahaa halkuu dhigay halkuu yaala ilaa maanta lagu kala bixilayay waxaan leeyahay gudoomiyuhu ummadan wuxuu rabaa xil buu ka rabaa waa murashax inuu hogaamiyo rabaa inuu mataqaanay intuu koox yar soo kaxaysto inuu garoomadaasi isdhex taago oo yiraahdo biraha soo celiya haddaad soo celin weydaana annaga ayaa biro u samaynayna garoomada maaha asbaabta birahan loo jaray inuu horta ogaado ahayd asbaabta loo jaray waa la isaga kaaya diray caruurta dhalinyartaasi midiya la isku dhiibay hal annaga iyo booliisku waxnu isla garanay in la hakiyo in la yar joojiyo in la maslaxo in la heshiisiyo in dib loo habeeyo in garoomadii la hagaajiyo in dib ciyaarihii loo bilaabo gudiyo in loo sameeyo waalidiinta in mataqaanay la wacyi ay mataqaanay la wargeliyo si ay ubadkooga iyaguna ay mataqaanay guriga ugu soo waaniyaan wax u soo sheegaan muhiimadda ciyaaru leedin ay u soo sheegaan waa laga shaqeynaya hawsha gudiya ka shaqeynaya habeen iyo dharaar lagama fadhiisto waxaan leeyahay gudoomiye halka wax weyn baa kaaga dhacay baan leeyahay haddii dalkan wax la hagaajinayo wax badan baa baylahsan oo xaggaaga ka baylahsan toosi wixii xaggaaga ka baylahsan annagu haddaan wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha nahay habeen iyo dharaar waxaan u taagannahay in dhalinyarada la dhiiri geliyo in shaqo abuur loo sameeyo in tartamo ciyaaraha loo sameeyo in garoomada loo dhiso in la hagaajiyo xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo been laga sheegi maayo waa daahir waa wax cadaana budgetkii ugu badnaa buu geliyay dhinaca ciyaaraha gobolada dalka waaweyn oo dhan waxa garoomadii laga dhigaya garoomo casriya oo roogii cagaar yaala waxa la wadaa in la dhiso garoomadii basketballka garoonka Timcadde waanu haynaa budgetkiisii maalin dhowna waan iclaaminaynaa garoon dadan oo caalamiya oo sida garoomada caalamka lagu ciyaaro ayuu noqon doonaa garoonka Timcadde haddii alla yiraahdo